waxaa nin ka soo baxay kuleelka Sahara hala tufayo xilli dhulku ku noola uu ahaa meelaha ugu fakirsan ee caalamka. Waan Suleymaan Arraajihi ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. Suleymaan ibn Abdulaziz Arraajihi waa milyaneer caan ka ah wadamada Carabta ahna ragga ugu maalqabeynsan ee caalamka. wuxuu dhashay 1928 xilligaas dhulka Sacuudiga wuxuu ahaa meelaha ugu adag ee lagu noolaan karo. Faqri iyo gaajo aad u daran ayaa ka jirtay jasiiradda Carabta ka hor soo saaridda batroolka. waxaa adkayd in la arko qof maalqabeen ah, taasoo keentay Suleymaan Arraajihi isagoo 9 jir ah inuu qaato dambiisha. maanta bangiga Arraajihi ama masraf Arraajihi gudaha Sacuudiga wuxuu ku leeyahay ku dhawaad 800 oo laamood iyo xarumo aad u badan daafaca caalamka. isagoo 9 jir ah xaaladda reerkood dartood ayuu ku qasbanaaday inuu iibiyo dambiilo. xaalad aad u dayay ku jireen reerkooda, taasoo keentay inay u soo guuraan magaalada Riyaad. 10 sano markuu jiray, dambiil iibintii wuxuu ugu sii gudbay inuu noqdo xamaali. 12 sano markuu gaaray, wareegay inuu u guro beeralayda miraha timirta ayna siiyaan lacag dhan 6 riyaal. howlo fara badan ayuu ka shaqeeyay sida dhismaha guryaasha, taasoo siisay khibrad aad u sareysa. markii uu gaaray 15 sano, wuxuu go'aansaday inuu furto dukaan oo lagu iibiyo quudka guryaha sida cusbada iyo sonkorta. laakiin dukaankii wuu iibiyay si uu ugu daboolo qarashka gurkiisa. wuxuu bilaabay inuu noqdo sariifle. ujeedada ayuu lacagta ka bedeli jiray. waxaa hawshaas kula soo biiray walaalkiis Saalax Arraajihi. mashruuc soconayo ayuu noqday sariiflenimada, taasoo keentay sanadkii 1956 inay aasaasaan kabar yar ee lagu sarifo lacagta, inuu isu bedelo masraf Arraajihi ama bangiga Arraajihi. maanta boqolaal xarumood ayuu ku leeyahay gudaha Sacuudiga iyo caalamka. 8,000 oo shaqaalaha ayaa ka shaqeysa. maanta waa kan ugu macaamiisha badan Sacuudiga. waxaa xusid mudan inuu iloowin faqrinimada dhibtadeeda, taasoo keentay boqolaal milyan oo ka mid ah lacagtiisa inuu sadaqaysto. waa nin aad looga yaqaano samafalka. حتى اليوم أنا مرفه طالما أني الحين ما ليس راحته ولا أنا أصبحت ما أملك ولا شيء وأنا بنفسي وقف. هذا أكبر رفاهية. الجلوس مع هذا الرجل لدقائق قد يكلفه الكثير من ساعة الإمارات اليوم وصل دعبي إنه سليمان الراجحي وجيريودي سندي 2017 لكن ويلك أوه هي فهد أحمد الراجحي برتيس تويتر كا بشلوليو 10 كده وحكسو دعبي 2020 برتيس تويتر كا وحكسو دعبي هذا النهركيس أو أها وهي سليمان الراجحي عافماد أيو قبا الله يا محد أصونات يومينو. laakiin wararka sheegaya inuu Suleymaan Arraajihi u geeriyooday waa been. Allah waxaan ugu baryayaa inuu umrigiisa dheereeyo, ayuu yiri Ahmed Arraajihi. Suleymaan Arraajihi waa mid ku dayasho u mudan dadka Soomaalida. wuxuu ku soo barbaaray maanta dadka Soomaalida intooda badan xaalad ay ku jiraan ayuu ku soo barbaaray, kadibna wuxuu go'aansaday inuu ka baxo xaaladan. waxaan filayaa inaad taasisto macluumaad ku saabsan الشيخ سليمان الراجحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.